Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclahay in idiin soo gudbiyo film lagu magacaabo Lamb. Lamaanaha Maria iyo Ingvar waa beeraley iyo xoolo dhaqato ku nool buuraha Iceland. Ma lahan wax carruur ah. Waxay ku nool yihiin nolol xasiloon, iyagoona si fiican u daryeela xoolahooda. Waxay waqtigooda intiisa badan ku bixiyaan hawlaha guriga, iyagoona midba midka kale u caawinayo. Maalinkii xigtay, waxay hubinayaan caafimaadka xoolaha, iyagoona suntay xoolaha cusub ee kusoo biiray xerada. Maria waxay u sheegtay in tirada xooluhu ay hadda ka badan tahay tii sanadkii hore, balse isagu ma xiisaynayo inay ballaadhaan adhigu, maadaama ayna wax baahi ah u qabin. Iyadoo kala hadlaysa shaqada, waxay u sheegtay wax ku saabsan cagafta, iyadoona u sheegtay inay mar kale keenayso dhibaatooyin, isagoona u sheegay inay hagaajin doonaan ka hor xilliga beerista. Waxa ay xerada habeenkaas kula kulmeen dhacdo la yaab leh, taasi oo ah markii ay arkeen mid riyaha ka mid ah oo dhashay noole isku dhaf ah, dhinac bini'aadam dhinacna riy, iyagoona garwaaqsan inuu aad ugu janjeero bini'aadanimada. Maria waxay u soo qaaday dhanka iyo guriga. Lamaanuhu waxa ay bilaabeen inay daryeelaan maadaama aysan haysan wax carruur ah. Waxay jacaylkooda waalidnimo u hibeeyeen noolahan mucjisada ah, iyagoona ugu magac daray Ada, oo ahayd inan ay dhaleen balse ka dhimatay. Maalinkii xigtay, Ingvar waxa uu u keenay sariir carruureed, waxaana u dhigay qolkooda si aanu uga fogaan iyaga. Dhanka kale, hooyada dhashay Ada waxa ay cidlo ku dareemaysay xerada, iyadoona tabaysa ilmaheedii. Waxa ay bilowday inay u cido, laakiin wax jawaaba ma aysan helin. Ingvar waxa uu arkay Maria sida ay ula dhaqmayso noolahan. Waa uu ooyay, isagoona ka xumaaday inay waayaan ilmahoodii Ada, laakiin waxa uu murugadiisa ka qarinayay Maria, maadaama uusan doonayn inuu waxyeello u geysto iyada. Waqtigu waa socdaa. Hooyada rasmiga ah ee Ada waxa ay ku wareegeysanaysay guriga, iyadoona u dhawaaqaysay ilmaheeda. Maria waa ay dhisatay ridan, iyadoona mar walba ka fogeyn jirtay aagga guriga. Subax hore, Maria waxay u ambabaxday inay kasoo shaqayso beerta. Ingvar waxa uu sidoo kale ka baxay guriga, isagoona hilmaamay inuu albaabka guriga soo xidho. Markii ay soo dhammaysteen hawlahooda maalinlaha, waxa ay ku soo laabteen guriga, waxayna ogaadeen inay Ada ka maqan tahay guriga. Raadin dheer kadib, Maria aad bay uga walwalsanayd maqnaanshaha Ada, laakiin Ingvar waxa uu u sheegay inay heli doonaan iyada. Waxa ay bilaabeen inay ka raadiyaan aagga guriga. Markii ay soo noqdeen rajo la'aan, waxa ay maqleen cida Ada, waxayna u soo yaaceen xaggeeda, halkaasi oo ay ku arkeen iyadoo hooyadeed ag hurudda. Isla markiiba waxay kaxaysteen Ada, halka ay Ada hooyadeed bilowday inay daba cararto iyaga, balse ma aysan dhegeysan. Halka ay Maria ku qaylinaysay iyadoona leh, tani xoolo ma aha. Markii ay ku soo laabteen guriga, waxa ay Ada geeyeen sariirteeda, waxa ayna bilaabeen inay nafisaan. Marba marka ka dambeysa, Ada waxa ay noqonaysaa xubin muhiim ah oo ka tirsan qoyska. Subax kale, waxaa la sii daayay adhiga, halka ay Maria waqti la qaadanaysay Ada. Habeen kale ayaa soo galay, kala badh habeenimo. Maria waxa ay riyo ku aragtay rida dhashay Ada, riyadanina waxa ay argagax ku abuurtay Maria. Maria waxa ay qorsheysay inay disho hooyada Ada. Kala badh habeenimo, Maria waxa ay u soo baxday dilka, iyadoona ku furtay rasaasta. Dhimashada kadib, Maria waxa ay si dhaqso ah isugu dayeysay inay duugto ama ay aasto, balse waxaa qorshaha la socday Peter, oo ah walaalka Ingvar oo hadda yimid guriga. Subaxii xigtay, Ingvar waxa uu ku faraxsanaa inuu arko walaalkii muddo dheer kadib. Waxay isu diyaarinayeen quraacda, waxaana si kedis ah ugu soo gashay Ada. Maria waxa ay bilowday inay kolkiiba Peter barto, iyadoona ka dhaadhicinaysa inuu u badan yahay bini'aadam. Peter wuu ka xanaaqay inuu arko Maria. Waxa ay waqti la qaadanaysay Ada, iyadoona ula dhaqmaysay sidii ilmaheeda oo kale. Halka Ingvar iyo Peter ay rajeynayeen guriga. Peter waxa uu ku soo laabtay gudaha guriga, isagoona arkayay Maria oo la ciyaaraysa Ada. Peter waxa uu u muujiyay Ingvar sida uu uga xun yahay joogitaanka guriga ee Ada, laakiin Ingvar ma danaynayo ra'yigiisa, maadaama uu u maleynayo inay tahay sababta ka dambeysa farxaddooda. Habeen kale, Ingvar iyo Peter waxa ay ku caweynayaan qolka Peter. Maria waxa ay bilowday inay u keento Ada si ay u tiraahdo habeen wacan. Peter waxa uu isku dayay inuu mar kale kala hadlo Ingvar wax ku saabsan Ada, balse waa uu aamusay isaga oo aan doonayn inuu ka hadlo arrinta. Ingvar isaga oo la hadlaya Peter waxa uu ku yidhi, joog intaad doonto guriga, balse ha isku dayin inaad farageliso arrimaha guriga. Dhanka kale, Maria kuma aysan faraxsanayn habdhaqanka Peter. Waxay Ingvar weydiinaysay inta uu la joogi karo iyaga, balse Ingvar waxa uu u sheegay inaanu ogeyn taa. Subaxii xigtay,
Inta ay beerayaan baradhada, eyga ayaa la joogay Ada, balse eygu waa uu ka baqay isagoona ka cararaya. Inta ay ka nasanayaan shaqada, Peter waxa uu u sheegay Maria inay Ada tahay xayawaan, balse Maria ma aysan dhegeysan isaga waxayna u sheegtay in aanu mar dambe soo faragelin arrimaha qoyska. Waa subax kale, Eva waxa uu hurdada ka kiciyay Peter si uu uga caawiyo nadiifinta alaab duug ah. Intii ay ku guda jireen nadiifinta, Peter waxa uu helay durbaankiisii yaraanta, waxa uuna bilaabay inuu garaaco isagoona ku raaxaysanaya. Dhanka kale, Ada waxa ay bilowday inay ku ciyaarto durbaanka, taasina waxa ay ka cadhaysiisay Peter. Waxa uuna bilaabay inuu ku dheeldheelo isagoona u wacayay si uu u siiyo xoogaa doog ah. Tanina waxa ay ka xanaajisay Eva, wuxuuna bilaabay inuu canaanto Peter. Maalinkii xigtay, intayna lamaanuhu soo kicin, Peter waxa uu aroor hore kaxaystay Ada, isagoona damacsanaa inuu dilo. Peter waxa uu fiirinayay wejiga Ada, waxa uuna ka laabtay go'aankiisii ahaa inuu dilo. Maria waxa ay ka soo kacday hurdada, waxayna aragtay Ada oo ka maqan sariirteedii. Waxa ay ka raadinaysay guriga, balse waa ay yaabtay markii ay aragtay Ada oo ku hurda dhabta Peter. Taasina waxay xaqiijinaysaa inuu Peter rumaystay bini'aadanimada Ada. Maalmo kadib, Peter waxa uu u baxay kalluumaysi, isagoona hore u sii watay Ada, halka ay lamaanuhu aad ugu farxeen arrintan. Peter intii uu ku guda jiray kalluumaysiga waxa uu Ada uga sheekeynayay waqtiga carruurnimada ee Eva. Peter waxa uu u soo ambabaxay ku soo laabashada guriga, balse intii ay waddada ku soo jireen cagaftii ayaa kaga tagtay waddada dhexdeeda, waxaana uu go'aansaday inuu lug ku tago guriga. Peter waxa uu yimid guriga, cashada kadib waxa ay si wadajir ah u daawanayeen ciyaar, balse waa ay ka xumaadeen markii laga badiyay kooxda ay taageersanaayeen. Maria iyadoo xanaaqsan ayay beddeshay TV-ga, iyadoona geysay heeso, taasi oo beddeshay mooraalka qof walba, waxayna bilaabeen inay dhammaantood ciyaaraan. Inta ay ku mashquulsanaayeen ciyaarta, Ada waxa ay bilowday inay baxsato. Bannaanka guriga, Ada waxa ay ku aragtay aabbaheed. Aad ayay u yaabtay markii ay aragtay inay aad ugu eg tahay isaga, balse Ada waxa ay si degdeg ah ugu laabatay guriga. Ada waxa ay ag tiistay Eva, waxa ayna bilowday inay fikirto. Maalinkii xigtay, Maria waxa ay hurdada ka kicisay Peter, iyadoona u sheegtay inuu guriga ka tago. Eva waxa uu soo kacay guriga oo cidlo ah. Maria iyo Peter waxa ay gaadheen bosteejada, waxayna u sheegtay inay Ada tahay hadiyad si khaas ah loogu soo diray iyaga. Waxaa la gaadhay xilliguu bixi lahaa Peter, inkastoo ayna Maria ka helin habdhaqankiisa, haddana waxa ay siisay lacag uu ka dhigto kharash, wayna macasalaameysay. Dhanka kale, Eva waxa uu u baxay si uu u soo hagaajiyo cagaftii, waxaana hore u sii watay Ada. Markii uu gaadhay cagafta, waxa uu hore ka guda galay hagaajinta cagafta, balse wuu hagaajin kari waayay, waxaana uu laabtay guriga. Maria iyadoo faraxsan ayay guriga ku soo laabatay, iyadoona filaysay inay si nabad ah ku noolaan doonaan wixii intaas ka dambeeya. Waxayna aragtay guriga oo cidlo ah, waxay bilowday inay raadiso Eva iyo Ada, waxayna ka raadinaysay agagaarka guriga ilaa ay ka maqashay rasaas ka yeedhaysa xagga beerta, waxayna isla markiiba u carartay xagga beerta. Aabbaha Ada waxa uu hore u dilay eygii qoyska, sidoo kale waxa uu dilay Eva, waxaana hore u kaxaystay Ada. Ada ma aysan rabin inay ka tagto Eva, balse waa ay ka dhaqaaqday iyadoona sii tallaacaysa xaggiisa. Eva waxba ma samayn karo. Maria waxa ay soo gaadhay Eva, waxayna aragtay isagoo dhaawac xun soo gaadhay. Eva waxa uu ku dhintay dhabta Maria. Maria waxa ay bilowday inay oydo, iyadoona niyadda ku haysay inay waxaan oo dhan iyadu ka dambeysay. Filimkuna halkaasi ayuu ku soo dhammaaday. Filimkana waxaynu ka qaadanaynaa in aynaan laynin xayawaanada, inagoona kala fogaanshahooda qaar ku raadinayna farxadda. Haddii aad halkan soo gaadhay, fadlan like muuqaalka si uu u gaadho dad badan oo adigoo kale ah. Subscribe na channelka.